بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka hore ilaahay baa mahad iska leh ilaahay baan ku mahadinaynaa kulankan inuu isugu nimi isaaka igu soo booqdeen Beeldaaje Ismaaciil gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga mas'uuliyiinta jaamacadda Reersey gudoomiye ka mid yahay ganacsatada Cabdikaafi iyo culimada uu ka mid yahay Sheekh Ali dhammaantood waxaan leeyahay iyo khiyaarta kale dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runaantii raggan aan tilmaamay waad garan kadhaan waa dadkii khayrka iyo wanaagga iyo horumarka waddanka ka shaqayn jiray saakana kulankan aan banaynayo inay qaybtiisa hore ku soo qabteen xafiiska rugta ganacsiga waxay hawsha ay u socdeen waa inta uu sheekhu sheegay waa dhismaha iyo muxuu ahaayay diyaarinta qaybta jaamacadda Reersey kulliyadda shariicada islaamka runtii waxaan isleeyahay waddanku baahida ugu weyn oo guud ahaan Soomaaliya ay qabto ama dhulka Soomaalidu degto khaasatan Puntland waxay loo baahan yahay in aynu xoog saarno sidaynu jaamacadaha iyo macaahid shariicada islaamka lagu barto in waddanku uu helo waa waxa ugu weyn oo aynu maanta u baahannahay arrinka marka ay keeneen runtii waxaan leeyahay iyagana waxaan leeyahay jasaakumullahu khayra jazaa ummadda Soomaaliyeed dadka khayrka jecel oo wanaagga jecel waxaan leeyahay arrinka inaynu fadhiga uga kacno ilaahay quraankiisu ku yiri watacaawanu cala albirri wattaqwa wala tacaawanu cala alismi walcudwan waxa weeye in khayrka la isku kaalmaysto waa waajib ayada quraanka ay muxuu ahaayay in ku waajib yeesha taa marka qof kasta oo kelmadaydan maqlaya qofkii awoodi kara inuu wuxuu bixin karo uu ku bixiyo dhismaha kulliyadaas mawduuc hadda arrinka aynu u fadhinaa waxa weeye jaamacaddan Reersey qaybteeda kulliyatu shariica Boosaaso sidii aynu u meel marin lahayn hawsha marka waa sadaqatul jaariya waa wax aad adduunyo aakhiraba aynu ku liibaanayno waliba waqtigan adag oo aynu u baahannahay dhammaanteen aynu wada aragno hawshaas marka waxaan leeyahay ilaahay khayr idin siiyo Allah idin barakeeyo cid kasta oo arrinka jecel oo wax ku bixinaysa ilaahay dartiis waxaan leenahay waxooda Allah u barakeeyo ilaahay waxaan uga baryaynaa inay miisaanka xasanaadka in ilaahay u saaro in ilaahay caruurtooda iyo xaasaskooda ilaahay ugu dhowro ilaahay ugu xiftiyo cid alla cidii kelmadeeda ama maalkeeda ku bixisa ilaahay waxaan uga baryaynaa khayr gaar in ilaahay siiyo caruurta in ilaahay u badbaadiyo xaasaska iyo guryaha in ilaahay u badbaadiyo cimriga ilaahay ugu barakeeyo maalkana ilaahay ugu barakeeyo ilaahay saasan ka baryaynaa wa akhiru da'wana ila alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraaca geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta wow macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank haddii aad safar aad tahay dooro bas adigoo ka sii dooranaya Going From oo u taagan magaalada aad ka tagaysid taabo Going To oo u taagan
magaalada aad tegaysid. taariikhda aad baxayso. dooro shirkadda aad ku safraysid. kasii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto. geli magacaaga oo saddexan. taabo lacag bixinta. sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga. geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh.